waxaana wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhawow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan barta YouTube-ka ee Maracadda Show. waa 3 bisha December sanadka 2020 qodobada aan xilligan wararka kugula wadaagi doono waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay duqeymaha laamaha amniga ay ka maqleen garoonka diyaaradaha iyo saldhig ciidan oo madaxtooyada ku dhow ee magaalada Asmara ee caasimadda Eritrea. madhaba in afgambi siyaasadeed lala doonayo madaxweynaha dalkaas Eritrea Asiya Safawarki. macluumaadka ku saabsan xiisada kale ee ka dhalanaysa gudaha dalkaasi Itoobiya iyo dagaalka laga baqayo in isballaarsiga amxaarada ay sameynayaan uu saameyn ku yeesho dalkaasi Itoobiya. wararkii ugu dambeeyay qaraxa ka dhacay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya iyo macluumaadka ku saabsan duqeymaha lala eegtay saraakiisha ka tirsan jabhadda TPLF ee ka dagaalamaysa gudaha dalkaasi Itoobiya. saraakiisha ka tirsan TPLF ee la baadigoobayo iyo xubnaha la xaqiijiyay in gacanta lagu soo dhigayaasa ka mid ah qodobadaas iyo kuwa kale ayaan kugula wadaagi doonaa falanqaynta xilligan. mar kale ku soo dhawow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka. waxaan marka hore ku hormari doonaa dagaalada ka dhacay gudaha dalkaasi Itoobiya iyo sidoo kale saameynta dadban ee iminka ka dhalanaysa taasoo caqabad ku noqonaysa xukuumadda uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed. tani wixii ka dambeeyay markii dowladda federaalka Itoobiya ay shaaca ka qaaday inay guulo la taaban kara ka gaartay dagaaladii ka dhacay dhanka waqooyi ee dalkaasi Itoobiya ee lagu qaaday maleeshiyaadka Tigreega ayaa haddana waxaa soo baxay caqabado kale oo la sheegaya inay ka dhasheen dhul isballaarsi ay sameynayaan axmaarada kuwaas oo ku sugan gudaha dalkaasi Itoobiya. wararka ka imaanaya deegaano dhowr oo ka tirsan dhulka waqooyi ee dalka Itoobiya oo ciidanka federaalka ay gacanta ay ku dhigeen ayaa waxa ay sheegayaan in iminka xiisad kale ay ka dhalanaysa deegaanadii gacanta lagu dhigay maadaama ciidanka federaalka Itoobiya ay ka soo jeeda qabaa'ilka amxaarada ay dhankooda ay doonayaan in ay saldhigtaan deegaano ay sheegeen in hore ay kaga qabsadeen maleeshiyaadka TPLF oo iminka iyaga oo shaarkii dowladda xiran ay gacanta ay ku dhigeen. waxaa deegaanada lagu magacaabo Huneera iyo sidoo kale Daansha oo dhawaan ay qabsadeen ciidanka militariga Itoobiya ka dhacay maalintii shalay banaanbax ballaaran oo ay soo abaabuleen kooxaha amxaarada ee aaminsan in deegaanadaasi ay ka mid yihiin dhulkooda. maanta dhulkan aan gacanta ku dhignay ee aan haysanay inta aan bixino raadsan mayna mar kale annaga oo haysana ayaa ku doodayna sidaasi waxa yiri Colonel Damaka Zawda oo ka mid ah saraakiisha ciidanka militariga dowladda Itoobiya ee dhawaan deegaanadaasi gacanta ku dhacay. deegaanka Dagadhe ayaa sidoo kale ka mid ah deegaanada ay banaanbaxyada ay ka dhaceen oo dadka amxaarada ay dhigayaan. marnaba noo arrimin maayaan Tigreega balse waxaa noo arrimin oo kaliya amxaarada. isu soo baxayaasha ayaa ku dhawaaqaya halkudhigyo iyo ereyo sidaas ay ka mid yihiin kuwaas oo ay ku dalbanayeen in dhul ay sheegeen in horey uu kaga maqnaa maanta ay gacanta ay ku dhigeen. dhulkaani lagu qabtay magaca sarreynta sharciga ciidanka dowladda Itoobiya ee gacanta u soo galay maleeshiyaadka amxaarada waxaa haatan ka socda barakicin la sheegay in lagu hayo dadka isir ahaan Tigreega ka soo jeeda sida ay ku doodayaan dadka Tigreega balse dowladda ayaa arrintaasi beenisay. waxaana saraakiisha iyo dadka falanqeeya siyaasadda ay shaacay ka qaadayaan in arrintaani noqon karto caqabad kale oo dowladda federaalka Itoobiya soo wajahda maadaama markii hore Tigreeg la dagaalamayo markaana dagaalka ayaa dhinaca kale isu bedeli kara. xukuumadda Ra'iisul Wasaare Dr. Abiy Ahmed ayaa wajihi doonta caqabad ballaaran oo salka ku haysa sheegashada deegaanada Raaya, Wolkeyd iyo sidoo kale Dagadhe oo ah koonfurta deegaanka Tigreega oo ay ku dhaqan yihiin dadka deegaanka isir ahaan isku haysta ee amxaarada iyo Tigreegu. haddii deegaanadaasi ay u gacan galaan maamulka deegaanka amxaarada waxaa hubaalaha inay care iyo nacayb ay qaadi doonaan Tigreega halka haddii amxaarada ay deegaanada mar kale ay waayaan iyo xukuumadda ay ku noqon karto laf dhown u gashay. waana caqabada kale iminka lagu warramayo inay ka soo dhalatay deegaanadii gacanta lagu dhigay. marka la eego dhibaatada iminka ka taagan gudaha dalkaasi Itoobiya gaar ahaan deegaanadii dhawaan gacanta lagu dhigay haddii xal loo heli waayo oo dowladda federaalka Itoobiya ku guuleysan weyso xiisada ayaa noqonaysa mid dhinaca kale isu rogta. dhinaca kalena faahfaahinna ayaa ka soo baxaya qarax la sheegay inuu ka dhacay meel ku dhow garoonka diyaaradaha ee Pole International ee magaalada Addis Ababa. qaraxaas oo mas'uuliyiin iyo dad goobjoogayaal ay sheegeen inuu sababay dhaawaca mid ka mid ah saraakiisha ciidanka booliiska oo goobta ku sugnaa iyo waxyeello soo gaartay dad kale oo goobta qaraxa uu ka dhacay ku sugnaa. dowladda federaalka ee Itoobiya ayaa arrintaani ku eedeysay inay ka dambeeyaan TPLF kuwaas oo ay sheegeen in ay qorsheeyeen weerar kala duwan oo ka dhacay magaalada Addis Ababa balse ma jiro wax war oo ka soo baxay dhanka TPLF iyo sidoo kale cid si rasmi ah u sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi. goobjoogayaal ayaana u sheegay wakaalada wararka ee Reuters in dhawaaqa qaraxaasi laga maqlay xaafadda Pole ee magaalada Addis Ababa kuna dhow garoonka diyaaradaha ee Pole International. wixii ka soo kordha macluumaadyadeenna kale ayaan ku eegi doonaa.
markana waxaan eegaynaa macluumaad kooban oo ku saabsan Eritrea. way adagtaa xog iyo macluumaad dheeri ah in laga helo weeraro la sheegay in laga maqlay garoonka diyaaradaha ee magaalada Asmara iyo saldhig ciidan oo ku dhow madaxtooyada. saraakiil ka tirsan dowladda Eritrea ayaa waxay shaaci ka qaadayaan in arrintaasi ay tahay mid loo maleynayo in salka ku hayso afgambi la doonayo in xilka looga qaado madaxweynaha dowladda Eritrea Asiya Safawarki. rasaas ayay rideen laamaha amniga garoonka diyaaradaha iyo saldhig ciidan oo ku dhow aqalka madaxtooyada ayaa hub laga maqlay, mana jiraan warar kale oo la hubo oo madax bannaan oo ilaa iminka xaqiijin kara waxa uu ku saabsan yahay ama waxay ahaayeen rasaastaasi laga maqlay gudaha Asmara. markii ciidanka dowladda Itoobiya gacanta ku dhigeen magaalada Asmara ayaa sidaan oo kale dabaaldegyo la sheegay inay ka dhaceen deegaanada dhacdhanka xuduudda Eritrea iyo Itoobiya. madaxweynaha Eritrea ayaa lagu waramayaa inuu iminka uu ka badbaaday isku day afgambi sida ay tabinayaan ilaha kooban ee laga helayo xogaha gudaha dalkaasi Eritrea. way adagtahay in macluumaadyo dheeri ah laga helo xogaha ku saabsan weerarka iyo rasaasta laga maqlay magaalada Asmara ee caasimadda Eritrea. waxyaabaha ka soo kordha macluumaadyadeenna kale ayaan ku eegaynaa. markana waxaad ku soo dhawaataan macluumaad ku saabsan duqeymo diyaaradeed oo lala beegsaday madaxda Maaleysiga ku jira ee jabhadda TPLF. 38 qof oo la baadigoobayay ahna madaxda TPLF oo qaarkoodna la xaqiijiyay inay isku soo dhiibeen dowladda federaalka ee Itoobiya yaasa ka mid ah xubnahaasi. Faarax Abdulqaadir ayaa ka waramaya. xilli subaxnimadii hore ee maanta diyaaradaha dagaalka Itoobiya ay duqeymo ka fuliyeen buurale ku dhow magaalada Agrisalam oo ku dhow magaalada Maqale ee caasimadda Tigreega, halkaas oo la rumaysan yahay inay ahayd halka ay joogaan inta badan madaxda TPLF ee aan ka bixin gudaha Itoobiya. sida ay warinayaan weeyaan macluumaadka laga helayo warbaahinta u janjeerta dhanka dowladda ee magaalada Addis Ababa. booliiska federaalka Itoobiya ayaa sidoo kale sheegay in la soo qabtay 38 xubnood oo ka mid ah madaxdii TPLF, kuwaas oo ay sheegeen inay horey dalkooda uga galeen dambiye ay ka mid yihiin khiyaano qaran, waxaana la sheegay in hadda ay cadaaladda wajahayaan. lama sheegin magacyada dadka la qabtay iyo darajada ay ka hayeen maamulkan, balse ismaamul dhan oo dhisan ayaa la rumaysan yahay in lagu duulay. taasna ay keeni karto in dad badan oo ka tirsanaa hay-aduhu ay bilaabaan inay laamaha ammaanka isku dhiibaan maalmo kadib markii ciidanka dowladdu ay qabsadeen magaalada muhiimka ee Maqale. duqeymaha cusub ee la fuliyay oo ay bartilmaameedkooda gaarsiiyeen diyaaradaha iswada ee aan duuliyaha lahayn ee droniska ayaa ka dhigan in la bilaabay beegsiga madaxda TPLF xilli uu dhowaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ka Addis Ababa hoosta ka xariiqay in la xisaabtami doono. ra'iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu sheegay in la socdaan dhaqaaq kasta oo ay kooxdani samaynayso, wuxuu caddeeyay in la beegsan doono, taasoo durbo u muuqatay inay duqeymo diyaaradeed lagu bilaabay. saacado ka hor waxaa isdhiibay afhayeenkii hore ee aqalka sare ee Itoobiya Khayriye Ibrahim oo ka mid ahayd madaxda sare ee TPLF. xagga Suudaan waxaa lagu qabtay taliyihii ciidamada Tigreega qaybta loo yaqaano maleeshiyada oo gaaraya in ka badan 70,000 oo askari. waxaa la rumaysan yahay in jab badan ciidanka ka soo gaaray dagaaladii ka dhacay magaalooyinka Shire, Humera iyo Aksum oo ay ka dagaalamayeen buuraleyda ku dhow. dadka sida weyn loo baadigoobayo ee TPLF ka tirsanaa waxaa ka mid ah madaxweynihii ismaamulkaas, taliyihii sirdoonka guud ee Itoobiya General Getachew Asife, afhayeenka kooxda Getachew Rida iyo weliba jenaraalle ay ka mid yihiin kuwii xukumayay 27 sano ee la soo dhaafay ciidamada Itoobiya. docda kale in ka badan 220 askari oo Itoobiyaan ah kana mid aha kuwii ka farxaday dagaalkii 4 bisha November ay ciidanka Tigreegu ku qaadeen saldhiggii waqooyi ee dagaalkuwa ka bilowday ayaa maalmo dheer kadib soo gaaray deegaano ka mid ah goobaha ay ku sugan yihiin ciidanka Itoobiya, gaar ahaan xuduudda Amxaarada. sinaba way u rumaysan waayeen in ciidankii Tigreega la jabiyay lagana qabsaday dhammaan deegaanada ismaamulkaas, taasoo ay qaarkood ka ilmeeyeen markii ay dib u xasuusteen habeennimadii 4 November ee saldhigga ciidan lagu weeraray xilligaas oo baxsadka ay bilaabeen. aad ayaad u mahadsantahay Faarax. macluumaadkan ayaa u dambeeyay xubinta falanqaynta siyaasadda ee arrimaha sirdoonka ee guud ahaan barnaamijkeena oo xilligan aad ka daawanayseen Maracadda Show. qaybtan qayb xigta intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
waxaana wanaagsan daawada meel walbo aad joogtid ku soo dhawow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan barta YouTube-ka ee Maracadda Show. waa 3 bisha December sanadka 2020 qodobada aan xilligan wararka kugula wadaagi doono waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay duqeymaha laamaha amniga ay ka maqleen garoonka diyaaradaha iyo saldhig ciidan oo madaxtooyada ku dhow ee magaalada Asmara ee caasimadda Eritrea. madhaba in afgambi siyaasadeed lala doonayo madaxweynaha dalkaas Eritrea Asias Afwerki. macluumaadka ku saabsan xiisada kale ee ka dhalanaysa gudaha dalkaasi Itoobiya iyo dagaalka laga baqayo in isballaarsiga amxaarada ay sameynayaan uu saameyn ku yeesho dalkaasi Itoobiya. wararkii ugu dambeeyay qaraxa ka dhacay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya iyo macluumaad ku saabsan duqeymaha lala eegtay saraakiisha ka tirsan jabhadda TPLF ee ka dagaalamaysa gudaha dalkaasi Itoobiya. saraakiisha ka tirsan TPLF ee la baadigoobayo iyo xubnaha la xaqiijiyay in gacanta lagu soo dhigayaasa ka mid ah qodobadaas iyo kuwa kale ayaan kugula wadaagi doonaa falanqaynta xilligan. mar kale ku soo dhawow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka. waxaan marka hore ku hormari doonaa dagaalada ka dhacay gudaha dalkaasi Itoobiya iyo sidoo kale saameynta dadban ee iminka ka dhalanaysa taasoo caqabad ku noqonaysa xukuumadda uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed. tani wixii ka dambeeyay markii dowladda federaalka Itoobiya ay shaaca ka qaaday inay guulo la taaban kara ka gaartay dagaaladii ka dhacay dhanka waqooyi ee dalkaasi Itoobiya ee lagu qaaday maleeshiyaadka Tigreega ayaa haddana waxaa soo baxay caqabado kale oo la sheegaya inay ka dhasheen dhul isballaarsi ay sameynayaan axmaarada kuwaas oo ku sugan gudaha dalkaasi Itoobiya. wararka ka imaanaya deegaano dhowr oo ka tirsan dhulka waqooyi ee dalka Itoobiya oo ciidanka federaalka ee gacanta ay ku dhigeen ayaa waxa ay sheegayaan in iminka xiisad kale ay ka dhalanaysa deegaanadii gacanta lagu dhigay maadaama ciidanka federaalka Itoobiya ay ka soo jeeda qabaa'ilka amxaarada ay dhankooda ay doonayaan in ay saldhigtaan deegaano ay sheegeen in hore ay kaga qabsadeen maleeshiyaadka TPLF oo iminka iyaga oo shaarkii dowladda xiran ay gacanta ay ku dhigeen. waxaa deegaanada lagu magacaabo Huneera iyo sidoo kale Daansha oo dhawaan ay qabsadeen ciidanka militariga Itoobiya ka dhacay maalintii shalay banaanbax ballaaran oo ay soo abaabuleen kooxaha amxaarada ee aaminsan in deegaanadaasi ay ka mid yihiin dhulkooda. maanta dhulkan aan gacanta ku dhignay ee aan haysanay inta aan bixino raadsan mayna mar kale annaga oo haysana ayaa ku doodayna sidaasi waxa yiri Colonel Damaka Zawda oo ka mid ah saraakiisha ciidanka militariga ee dowladda Itoobiya ee dhawaan deegaanadaasi gacanta ku dhacay. deegaanka Dagadhe ayaa sidoo kale ka mid ah deegaanada ay banaanbaxyada ay ka dhaceen oo dadka amxaarada ay dhigayaan. marnaba noo arrimin maayaan Tigreega balse waxaa noo arrimin oo kaliya amxaarada. isu soo baxayaasha ayaa ku dhawaaqaya halkudhige iyo ereyo sidaas ay ka mid yihiin kuwaas oo ay ku dalbanayeen in dhul ay sheegeen in horey uu kaga maqnaa maanta ay gacanta ay ku dhigeen. dhulkaani lagu qabtay magaca sarreynta sharciga ciidanka dowladda Itoobiya ee gacanta u soo galay maleeshiyaadka amxaarada waxaa haatan ka socda barakicin la sheegay in lagu hayo dadka isir ahaan Tigreega ka soo jeeda sida ay ku doodayaan dadka Tigreega balse dowladda ayaa arrintaasi beenisay. waxaana saraakiisha iyo dadka falanqeeya siyaasadda ay shaacay ka qaadayaan in arrintan ay noqon karto caqabad kale oo dowladda federaalka Itoobiya soo wajahda maadaama markii hore Tigreeg la dagaalamayo markaana dagaalka ayaa dhinaca kale isu bedeli kara. xukuumadda Ra'iisul Wasaare Dr. Abiy Ahmed ayaa wajihi doonta caqabad ballaaran oo salka ku haysa sheegashada deegaanada Raaya, Wolkeyd iyo sidoo kale Dagadhe oo ah koonfurta deegaanka Tigreega oo ay ku dhaqan yihiin dadka deegaanka isir ahaan isku haysta ee amxaarada iyo Tigreegu. haddii deegaanadaasi u gacan galaan maamulka deegaanka amxaarada waxaa hubaala inay care iyo nacayb ay qaadi doonaan Tigreega halka haddii amxaarada ay deegaanada mar kale ay waayaan iyo xukuumadda ay ku noqon karto laf dhuun u gashay. waana caqabada kale iminka lagu warramayo inay ka soo dhalatay deegaanadii gacanta lagu dhigay. marka la eego dhibaatada iminka ka taagan gudaha dalkaasi Itoobiya gaar ahaan deegaanadii dhawaan gacanta lagu dhigay haddii xal loo heli waayo oo dowladda federaalka Itoobiya ku guuleysan weyso xiisada ayaa noqonaysa mid dhinaca kale isu rogta. dhinaca kalena faahfaahin ayaa ka soo baxaya qarax la sheegay inuu ka dhacay meel ku dhow garoonka diyaaradaha ee Bole International ee magaalada Addis Ababa. qaraxaas oo mas'uuliyiin iyo dad goobjoogayaal ay sheegeen inuu sababay dhaawaca mid ka mid ah saraakiisha ciidanka booliiska oo goobta ku sugnaa iyo waxyeello soo gaartay dad kale oo goobta qaraxa uu ka dhacay ku sugnaa. dowladda federaalka ee Itoobiya ayaa arrintan ku eedeysay inay ka dambeeyaan TPLF kuwaas oo ay sheegeen in ay qorsheeyeen weerar kala duwan oo ka dhacay magaalada Addis Ababa balse ma jiro wax war oo ka soo baxay dhanka TPLF iyo sidoo kale cid si rasmi ah u sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi. goobjoogayaal ayaana u sheegay wakaalada wararka ee Reuters in dhawaaqa qaraxaasi laga maqlay xaafadda Bole ee magaalada Addis Ababa kuna dhow garoonka diyaaradaha ee Bole International. wixii ka soo kordha macluumaadyadeenna kale ayaan ku eegi doonaa.
markana waxaan eegaynaa macluumaad kooban oo ku saabsan Eritrea. way adagtaa xog iyo macluumaad dheeri ah in laga helo weeraro la sheegay in laga maqlay garoonka diyaaradaha ee magaalada Asmara iyo saldhig ciidan oo ku dhow madaxtooyada. saraakiil ka tirsan dowladda Eritrea ayaa waxay shaaci ka qaadayaan in arrintaasi ay tahay mid loo maleynayo in salka ku hayso afgambi la doonayo in xilka looga qaado madaxweynaha dowladda Eritrea Isaias Afwerki. rasaas ayay rideen laamaha amniga garoonka diyaaradaha iyo saldhig ciidan oo ku dhow aqalka madaxtooyada ayaa hub laga maqlay, mana jiraan warar kale oo la hubo oo madax bannaan oo ilaa iminka xaqiijin kara waxa uu ku saabsan yahay ama waxay ahaayeen rasaastaasi laga maqlay gudaha Asmara. markii ciidanka dowladda Itoobiya gacanta ku dhigeen magaalada Asmara ayaa sidaan oo kale dabaaldegyo la sheegay inay ka dhaceen deegaanada dhacdhanka xuduudda Eritrea iyo Itoobiya. madaxweynaha Eritrea ayaa lagu waramayaa inuu iminka uu ka badbaaday isku day afgambi sida ay tabinayaan ilaha kooban ee laga helayo xogaha gudaha dalkaasi Eritrea. way adagtahay in macluumaadyo dheeri ah laga helo xogaha ku saabsan weerarka iyo rasaasta laga maqlay magaalada Asmara ee caasimadda Eritrea. waxyaabaha ka soo kordha macluumaadyadeena kale ayaan ku eegaynaa. markana waxaad ku soo dhawaataan macluumaad ku saabsan duqeymo diyaaradeed oo lala beegsaday madaxda dhuumaaleysiga ku jira ee jabhadda TPLF. 38 qof oo la baadigoobayay ahna madaxda TPLF oo qaarkoodna la xaqiijiyay inay isku soo dhiibeen dowladda federaalka ee Itoobiya yaasa ka mid ah xubnahaasi. Faarax Abdulqaadir ayaa ka waramaya. xilli subaxnimadii hore ee maanta diyaaradaha dagaalka Itoobiya ay duqeymo ka fuliyeen buurale ku dhow magaalada Agrisalam oo ku dhow magaalada Maqale ee caasimadda Tigreega, halkaas oo la rumaysan yahay inay ahayd halka ay joogaan inta badan madaxda TPLF aan ka bixin gudaha Itoobiya sida ay warinayaan weeyaan macluumaadka laga helayo warbaahinta u janjeerta dhanka dowladda ee magaalada Addis Ababa. booliiska federaalka Itoobiya ayaa sidoo kale sheegay in la soo qabtay 38 xubnood oo ka mid ah madaxdii TPLF, kuwaas oo ay sheegeen in horey dalkooda uga galeen dambiye ay ka mid yihiin khiyaano qaran, waxaana la sheegay in hadda ay cadaaladda wajahayaan. lama sheegin magacyada dadka la qabtay iyo darajada ay ka hayeen maamulkan, balse ismaamul dhan oo dhisan ayaa la rumaysan yahay in lagu duulay. taasina ay keeni karto in dad badan oo ka tirsanaa hay-aduhu ay bilaabaan inay laamaha ammaanka isku dhiibaan maalmo kadib markii ciidanka dowladdu ay qabsadeen magaalada muhiimka ee Maqale. duqeymaha cusub ee la fuliyey oo ay bartilmaameedkooda gaarsiiyeen diyaaradaha iswada ee aan duuliyaha lahayn ee droniska ayaa ka dhigan in la bilaabay beegsiga madaxda TPLF xilli uu dharmaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ka Addis Ababa hoosta ka xariiqay in la xisaabtami doono. ra'iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu sheegay in la socdaan dhaqaaq kasta oo ay kooxdani samaynayso, wuxuu caddeeyay in la beegsan doono, taasoo durbo u muuqatay inay duqeymo diyaaradeed lagu bilaabay. saacado ka hor waxaa isdhiibay afhayeenkii hore ee aqalka sare ee Itoobiya Khayriye Ibrahim oo ka mid ahayd madaxda sare ee TPLF. xagga Suudaan waxaa lagu qabtay taliyihii ciidamada Tigreega qaybta loo yaqaano maleeshiyada oo gaaraya in ka badan 70,000 oo askari. waxaa la rumaysan yahay in jab badan ciidanka ka soo gaaray dagaaladii ka dhacay magaalooyinka Shire, Homeera iyo Aksum oo ay ka dagaalamayeen buuraleyda ku dhow. dadka sida weyn loo baadigoobayo ee TPLF ka tirsanaa waxaa ka mid ah madaxweynihii ismaamulkaas, taliyihii sirdoonka guud ee Itoobiya General Getachew Asife, afhayeenka kooxda Getachew Rida iyo weliba jenaraalle ay ka mid yihiin kuwii xukumayay 27 sano ee la soo dhaafay ciidamada Itoobiya. docda kale in ka badan 220 askari oo Itoobiyana kana mid ah kuwii ka farxaday dagaalkii 4 bisha November ay ciidanka Tigreegu ku qaadeen saldhiggii waqooyi ee dagaalku ka bilowday ayaa maalmo dheer kadib soo gaaray deegaano ka mid ah goobaha ay ku sugan yihiin ciidanka Itoobiya, gaar ahaan xuduudda Amxaarada. sinaba way u rumaysan waayeen in ciidankii Tigreega la jabiyay lagana qabsaday dhammaan deegaanada ismaamulkaas, taasoo ay qaarkood ka ilmeeyeen markii ay dib u xasuusteen habeennimadii 4 November ee saldhigga ciidan lagu weeraray xilligaas oo baxsadka ay bilaabeen. aad ayaad u mahadsantahay Faarax. macluumaadkan ayaa u dambeeyay xubinta falanqaynta siyaasadda ee arrimaha sirdoonka ee guud ahaan barnaamijkeena oo xilligan aad ka daawanayseen Maracadda Show. qaybtan xigta intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo. waxaana wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhawow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan barta YouTube-ka ee Maracadda Show. waa 3 bisha December sanadka 2020. qodobada aan xilligan wararka kugula wadaagi doono waxaa ka mid ah
wararkii ugu dambeeyay duqeymaha laamaha amniga ay ka maqleen garoonka diyaaradaha iyo saldhig ciidan oo madaxtooyada ku dhow ee magaalada Asmara ee caasimadda Eritrea ma dhaba in afgambi siyaasadeed lala doonayo madaxweynaha dalkaas Eritrea Siyaas Afwerki. macluumaadka ku saabsan xiisada kale ee ka dhalanaysa gudaha dalkaasi Itoobiya iyo dagaalka laga baqayo in isballaarsiga amxaarada ay sameynayaan uu saameyn ku yeesho dalkaasi Itoobiya. wararkii ugu dambeeyay qaraxa ka dhacay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya iyo macluumaadka ku saabsan duqeymaha lala eegtay saraakiisha ka tirsan jabhadda TPLF ee ka dagaalamaysa gudaha dalkaasi Itoobiya. saraakiisha ka tirsan TPLF ee la baadigoobayo iyo xubnaha la xaqiijiyay in gacanta lagu soo dhigay yaasa ka mid ah qodobadaasi kuwa kale ayaan kugula wadaagi doonaa falanqaynta xilligan. mar kale ku soo dhawo barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka. waxaan marka hore ku hormari doonaa dagaalada ka dhacay gudaha dalkaasi Itoobiya iyo sidoo kale saameynta dadban ee iminka ka dhalanaysa taasoo caqabad ku noqonaysa xukuumadda uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed. tani wixii ka dambeeyay markii dowladda federaalka Itoobiya ay shaaca ka qaaday inay guulo la taaban kara ka gaartay dagaaladii ka dhacay dhanka waqooyi ee dalkaasi Itoobiya ee lagu qaaday maleeshiyaadka Tigreega ayaa haddana waxaa soo baxay caqabado kale oo la sheegaya inay ka dhasheen dhul isballaarsi ay sameynayaan axmaarada kuwaas oo ku sugan gudaha dalkaasi Itoobiya. wararka ka imaanaya deegaano dhowr oo ka tirsan dhulka waqooyi ee dalka Itoobiya oo ciidanka federaalka ee gacanta ay ku dhigeen ayaa waxa ay sheegayaan in iminka xiisad kale ay ka dhalanaysa deegaanadii gacanta lagu dhigay maadaama ciidanka federaalka Itoobiya ay ka soo jeeda qabaa'ilka amxaarada ee dhankooda ay doonayaan in ay saldhigtaan deegaano ay sheegeen in hore ay kaga qabsadeen maleeshiyaadka TPLF oo iminka iyaga oo shaarkii dowladda xiran ay gacanta ay ku dhigeen. waxaa deegaanada lagu magacaabo Huneera iyo sidoo kale Daansha oo dhawaan ay qabsadeen ciidanka militariga Itoobiya ka dhacay maalintii shalay banaanbax ballaaran oo ay soo abaabuleen kooxaha amxaarada ee aaminsan in deegaanadaasi ay ka mid yihiin dhulkooda. maanta dhulkan aan gacanta ku dhignay ee aan haysanay inta aan bixino raadsan mayna mar kale annaga oo haysana ayaa ku doodayna sidaasi waxa yiri Colonel Damaka Zawda oo ka mid ah saraakiisha ciidanka militariga dowladda Itoobiya ee dhawaan deegaanadaasi gacanta ku dhacay. deegaanka Dagadhe ayaa sidoo kale ka mid ah deegaanada ay banaanbaxyada ay ka dhaceen oo dadka amxaarada ay dhigayaan. marnaba noo arrimin maayaan Tigreega balse waxaa noo arrimin oo kaliya amxaarada. isu soo baxayaasha ayaa ku dhawaaqaya halkudhigyo iyo ereyo sidaasi ay ka mid yihiin kuwaas oo ay ku dalbanayeen in dhul ay sheegeen in horey uu kaga maqnaa maanta ay gacanta ay ku dhigeen. dhulkaani lagu qabtay magaca sarreynta sharciga ciidanka dowladda Itoobiya ee gacanta u soo galay maleeshiyaadka amxaarada waxaa haatan ka socda barakicin la sheegay in lagu hayo dadka isir ahaan Tigreega ka soo jeeda sida ay ku doodayaan dadka Tigreega balse dowladda ayaa arrintaasi beenisay. waxaana saraakiisha iyo dadka falanqeeya siyaasadda ay shaaca ka qaadayaan in arrintan ay noqon karto caqabad kale oo dowladda federaalka Itoobiya soo wajahda maadaama markii hore Tigreeg la dagaalamay markaana dagaalka ayaa dhinaca kale isu bedeli kara. xukuumadda Ra'iisul Wasaare Dr. Abiy Ahmed ayaa wajihi doonta caqabad ballaaran oo salka ku haysa sheegashada deegaanada Raaya, Wolkeyd iyo sidoo kale Dagadhe oo ah koonfurta deegaanka Tigreega oo ay ku dhaqan yihiin dadka deegaanka isir ahaan isku haysta ee amxaarada iyo Tigreegu. haddii deegaanadaasi ay u gacan galaan maamulka deegaanka amxaarada waxaa hubaalaha inay care iyo nacayb ay qaadi doonaan Tigreega halka haddii amxaarada ay deegaanada mar kale ay waayaan iyo xukuumadda ay ku noqon karto laf dhuun u gashay. waana caqabada kale iminka lagu warramayo inay ka soo dhalatay deegaanadii gacanta lagu dhigay. marka la eego dhibaatada iminka ka taagan gudaha dalkaasi Itoobiya gaar ahaan deegaanadii dhawaan gacanta lagu dhigay haddii xal loo heli waayo oo dowladda federaalka Itoobiya ku guuleysan weyso xiisada ayaa noqonaysa mid dhinaca kale isu rogta. dhinaca kalena faahfaahinna ayaa ka soo baxaya qarax la sheegay inuu ka dhaca meel ku dhow garoonka diyaaradaha ee Pole International ee magaalada Addis Ababa. qaraxaas oo mas'uuliyiin iyo dad goobjoogayaal ay sheegeen inuu sababay dhaawaca mid ka mid ah saraakiisha ciidanka booliiska oo goobta ku sugnaa iyo waxyeello soo gaartay dad kale oo goobta qaraxa uu ka dhacay ku sugnaa. dowladda federaalka ee Itoobiya ayaa arrintani ku eedeysay inay ka dambeeyaan TPLF kuwaas oo ay sheegeen in ay qorsheeyeen weerar kala duwan oo ka dhacay magaalada Addis Ababa balse ma jiro wax war oo ka soo baxay dhanka TPLF iyo sidoo kale cid si rasmi ah u sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi. goobjoogayaal ayaana u sheegay wakaalada wararka ee Reuters in dhawaaqa qaraxaasi laga maqlay xaafadda Pole ee magaalada Addis Ababa kuna dhow garoonka diyaaradaha ee Pole International. wixii ka soo kordha macluumaadyadeena kale ayaan ku eegi doonaa. markana waxaan eegaynaa macluumaad kooban oo ku saabsan Eritrea.
way adagtahay xog iyo macluumaad dheeri ah in laga helo weeraro la sheegay in laga maqlay garoonka diyaaradaha ee magaalada Asmara iyo saldhig ciidan oo ku dhow madaxtooyada. saraakiil ka tirsan dowladda Eritrea ayaa waxay shaaci ka qaadayaan in arrintaasi ay tahay mid loo malaynayo in salka ku hayso afgambi la doonayo in xilka looga qaado madaxweynaha dowladda Eritrea Asias Afwerki. rasaas ayay rideen laamaha amniga garoonka diyaaradaha iyo saldhig ciidan oo ku dhow aqalka madaxtooyada ayaa hub laga maqlay, mana jiraan warar kale oo la hubo oo madax bannaan oo ilaa iminka xaqiijin kara waxa uu ku saabsan yahay ama waxay ahaayeen rasaastaasi laga maqlay gudaha Asmara. markii ciidanka dowladda Itoobiya gacanta ku dhigeen magaalada Asmara ayaa sidaan oo kale dabaaldegyo la sheegay inay ka dhaceen deegaanada dhacdhanka xuduudda Eritrea iyo Itoobiya. madaxweynaha Eritrea ayaa lagu waramayaa inuu iminka uu ka badbaaday isku day afgambi sida ay tabinayaan ilaha kooban ee laga helayo xogaha gudaha dalkaasi Eritrea. way adagtahay in macluumaadyo dheeri ah laga helo xogaha ku saabsan weerarka iyo rasaasta laga maqlay magaalada Asmara ee caasimadda Eritrea. waxyaabaha ka soo kordha macluumaadyadeena kale ayaan ku eegaynaa. markana waxaad ku soo dhawaataan macluumaad ku saabsan duqeymo diyaaradeed oo lala beegsaday madaxda dhuumaaleysiga ku jira ee jabhadda TPLF. 38 qof oo la baadigoobayay ahna madaxda TPLF oo qaarkoodna la xaqiijiyay inay isku soo dhiibeen dowladda federaalka ee Itoobiya yaasa ka mid ah xubnahaasi. Faarax Abdulqaadir ayaa ka waramaya. xilli subaxnimadii hore ee maanta diyaaradaha dagaalka Itoobiya ay duqeymo ka fuliyeen buurale ku dhow magaalada Agrisalam oo ku dhow magaalada Maqale ee caasimadda Tigreega, halkaasoo la rumaysan yahay inay ahayd halka ay joogaan inta badan madaxda TPLF aan ka bixin gudaha Itoobiya sida ay warinayaan weeyaan macluumaadka laga helayo warbaahinta u janjeerta dhanka dowladda ee magaalada Addis Ababa. booliiska federaalka Itoobiya ayaa sidoo kale sheegay in la soo qabtay 38 xubnood oo ka mid ah madaxdii TPLF kuwaasu ay sheegeen inay horey dalkooda uga galeen dambiye ay ka mid yihiin khiyaano qaran, waxaana la sheegay in hadda ay cadaaladda wajahayaan. lama sheegin magacyada dadka la qabtay iyo darajada ay ka hayeen maamulkan, balse ismaamul dhan oo dhisan ayaa la rumaysan yahay in lagu duulay. taasina ay keeni karto in dad badan oo ka tirsanaa hay-aduhu ay bilaabaan inay laamaha ammaanka isku dhiibaan maalmo kadib markii ciidanka dowladdu ay qabsadeen magaalada muhiimka ee Maqale. duqeymaha cusub ee la fuliyey oo ay bartilmaameedkooda gaarsiiyeen diyaaradaha iswada ee aan duuliyaha lahayn ee droniska ayaa ka dhigan in la bilaabay beegsiga madaxda TPLF xilli uu dhowaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ka Addis Ababa hoosta ka xariiqay in la xisaabtami doono. ra'iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu sheegay in la socdaan dhaqaaq kasta oo ay kooxdani samaynayso, wuxuu caddeeyay in la beegsan doono, taasoo durbo u muuqatay inay duqeymo diyaaradeed lagu bilaabay. saacado ka hor waxaa isdhiibay afhayeenkii hore ee aqalka sare ee Itoobiya Khayriye Ibrahim oo ka mid ahayd madaxda sare ee TPLF. xagga Suudaan waxaa lagu qabtay taliyihii ciidamada Tigreega qaybta loo yaqaan maleeshiyada oo gaaraya in ka badan 70,000 oo askari. waxaa la rumaysan yahay in jab badan ciidanka ka soo gaaray dagaaladii ka dhacay magaalooyinka Shire, Homeera iyo Aksum oo ay ka dagaalamayeen buuraleyda ku dhow. dadka sida weyn loo baadigoobayo ee TPLF ka tirsanaa waxaa ka mid ah madaxweynihii ismaamulkaas, taliyihii sirdoonka guud ee Itoobiya General Getachew Asife, afhayeenka kooxda Getachew Rida iyo weliba jenaraalle ay ka mid yihiin kuwii xukumayay 27 sano ee la soo dhaafay ciidamada Itoobiya. docda kale in ka badan 220 askari oo Itoobiyaana kana mid ah kuwii ka farxaday dagaalkii 4 bisha November ay ciidanka Tigreegu ku qaadeen saldhiggii waqooyi ee dagaalkuwa ka bilowday ayaa maalmo dheer kadib soo gaaray deegaano ka mid ah goobaha ay ku sugan yihiin ciidanka Itoobiya, gaar ahaan xuduudda Amxaarada. sinaba way u rumaysan waayeen in ciidankii Tigreega la jabiyay lagana qabsaday dhammaan deegaanada ismaamulkaas, taasoo ay qaarkood ka ilmeeyeen markii ay dib u xasuusteen habeennimadii 4 November ee saldhigga ciidan lagu weeraray xilligaas oo baxsadka ay bilaabeen. aad ayaad u mahadsantahay Faarax. macluumaadkan ayaa u dambeeyay xubinta falanqaynta siyaasadda ee arrimaha sirdoonka ee guud ahaan barnaamijkeena oo xilligan aad ka daawanayseen Maracadda Show. qaybtan qayb xigta intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.